ورحمة الله وبركاته. وحن لكم سلام يا سلامة إسلامك. وحن لكم سلام يا سلامة إسلامك. أيها لكم السلام يا dadka oo meesha isku yimid oo dhan walaalayaal salaam alaykum mar labaadna way idin ku celinayaa horta guusha ilaahay baa bixiyo an-nasr min 'inda Allah nasriga ilaahay baa bixiyo guusha ilaahay baa nasiye laakiin waa naloo soo dhiibay marka caaw waxaan jeclahay inaan wax yar idinka taataabto halgankii SNM ururka dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed iyo sababihii loo aasaasay waa inaan wax yar ka fahanaa taariikh deena qofka duun taariikhdiisa garanaynin waxba garanba maayo SNM waxay ka bilaabatay dhibaatooyinkii ama dadkii la dhibay horta SNM waxa aasaasay dad aqoon-yahanno ah iyo niman wadaadda ah ayaa aasaasay waxaana lagu aasaasay Sacuudiga waxayna ka dhiidhiyeen dadkaasi dadkii wadaadada ahaa ee tobanka ahaa ee la dilay sida waxashnimada ah loo laayay ayay arintu inta badan ka bilaabatay iyo dadka Soomaalida marka oo lagu tacadinayay marka walaalayaal caawa inaad xasuusataan taariikhda loo baahan yahay taariikhdiina aad garataan aasaasayashii SNM waxa la aasaasay 6 Abriil 1981 marka waxa lagaga dhawaaqay group waxay ka yimaadeen Sacuudiga groupna London bay joogeen aasaasayashii Professor Abdisalaam Yaasin Maxamed Ahmed Ismaaciil Abdi Duqsi Hassan Aadan Wadaadiid Injineer Maxamed Xaashi Cilmi Colonel Saciid Abdullah Cigaal waxa kale goobjoog ka ahaa Xasan Ciise Jaamac Umar Daxood aw Muuse Jaamac waxa kale ku sii jiray Usmaan Indhoole Ahmed Xasan Khaliif Umar Meygaag Samatar Ahmed Zaki Guuleed nimankaas waa aasaasayashii SNM waxay ku bilaabatay nidaam wanaagsan bay ku bilaabatay oo dastuuro oo wanaagsan waxaan idinku xijinayaa gudoomiyaashii SNM soo maray gudoomiyaha ugu horeeyay SNM soo maray Ahmed Jamcaale gudoomiyaha labaad ee SNM soo maray Sheekh Yuusuf Sheekh Madar gudoomiyaha saddexaad ee soo maray Cabduqaadir Koosaar marka Cabduqaadir Koosaar waxa la xoojinayay military ahaan waxa ku xigay Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa ugu dambeeyay Cabdiraxmaan Ahmed Cali SNM nidaamkii ay noo dhigtay ayaa dawladnimadeennuna aasaaskii wanaagsanaa ee isbeddelka ahaa ee dimuqraatiga ahaa ee SNM noo dhigtay baan wali ku soconnaa marka nidaamkii madaxweynihii ugu horeeyay Cabdiraxmaan Ahmed Cali waxa ku xigay Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal Daahir Riyaale Kaahin Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo Muuse Biixi Cabdi Cabdiraxmaan Cabdillaahi Maxamed marka walaalayaal horta intaas waa nidaamkii SNM ay noo dhigtay ee lagu bilaabay SNM dadka aasaasay waa aqoon-yahan iyo wadaado okay waxaan halkan doonayaa inaan idinka sheego oo markii waqtigii Daahir Riyaale aan anigu wakiilka u ahaa Daahir Riyaale waqtigiisii Jarmalka iyo Yurub waxa lagu soo gali jiray baasaboorka Somaliland waqtigii ugu horeeyay ee baasaboorka Somaliland loogu yimid waxay ahaayeen Maxamed Cabdi Dheere Qaasim oo wasiir dawlaha ahaa iyo Axmed Yuusuf Xuseen marka waa 2002 marka walaalayaal horumar fiican baan gaadhnay oo xagga dawladda Jarmalka ah waqtigaas dawladda Jarmalka qadiyadeena waxaan hor dhignay baarlamaanka Jarmalka si fiican bay uga soo jawaabeen jawaabtiina waa halkan aan ku hayaa oo baarlamaanka Jarmalku qadiyada Soomaaliland waxay u qalantaabay yiraahdeen in la aqoonsado waxa kale oo halkan idinku hayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee waqtigaas dawladdii Daahir Riyaale inay wasaaradda arrimaha dibadda ay soo saartay qoraal ah oo maca saxiixiisii ah wato waqtiga
oo ku qoran in ay Soomaaliland u qalanto in la aqoonsado wixii dhibaato u keenayana dawladda Jarmalku waxay yiraahdeen annaka waxbaan ka qabaneynaa marka walaalayaal waqtigii anigu waxaan ahay ninkii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo u sameeyay casumaadii Junuub Suudaan waxaan gacan ka geystay barnaamijkii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ku tagay Mareykanka waxaana naga caawiyay safiirka Czech Republic u fadhiyo Washington DC qoraalkiin halkan idinku haya walaalayaal marka haddana waxaan qabtaa oo barnaamijkan hadda wada waxa weeyaan xagga jaamacadaha Somaliland Burco jaamacadda Burco Hargeysa iyo Tacamuud إن شاء الله كواسنا مرنا وينو إيمانيا ديسمبرنا ويمادين وحيمادين تشيك شرمال كان وحيمان دونان أبريل سنة كان وسود وين دونا مركا وسلامتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومالنا ويقول ستي أقونسي وان هلني سأنوق فايدة سنلهن أي نوت الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته